السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markasta oo aan ku dhibaatoodo maareynta nolosha waxaan naftayda ku qanciyaa hadalkan Allah haddii uu adoon jeclaado wuu imtixaanaa markaas ayay naftayda ku qanacdaa in uu rabbigeeda jeclaaday mararka qaarkood Allah wuxuu kugu imtixaanaa dhibaato balse Allah wuxuu imtixaanaa kaliya dadka uu jecel yahay ilaah subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo kuwa la jecel yahay oo dhibaatadana ku samra wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. markasta oo ay mushkilad ku soo wajahdo xasuusnow saddex arrin in ay waqti go'an soconayso in ilaahay kuu qoray in ay kuu hadeynayso ajir haddaad ku samirto dhibaato kastoo ina soo marto faa'iido ayaa ku jirto haddii aan ku samirno noqo mid ku samro kadibna ku cibro qaata haddii ay maalintu kugu xun tahay macnaheeda maahan in ay nolosha kugu xun tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dayaxa dadka ayaa madaxooda kor u qaado si ay u arkaan qiyacana asaga ayaa kor isku qaado si ay dadku u arkaan tusaalahani wuxuu ka dhigan yahay gabadha xijaaban ee dhoorsan iyo gabadha qaawan ee doonaysa in ay jirkeeda views ku hesho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.